nabadgelyo saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijreedkeena caawa qodobadaan idii haynana waxaa ugu waaweyn xildhibaano iyo senataro ka kala tirsan baarlamaanada golaha shacabkii aqalka sare ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku diyaarinaya mooshin ka dhana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo safar dibadda ugu maqan dowladda Djibouti xilli beesha uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaruhu ay aad uga soo horjeesteen mooshinka ka dhanka ee xilka loogu tuurayo waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan xogahaasi sidoo kale sirta ka dambeysay xilka qaadista lagu samaynayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre barnaamijreedkan ayaan idinku soo gudbin doonaa xogaha kalena hadduu Rabbi idmo waxa ka mid noqonaya ciidamadii ugu badnaa ee beesha mursade oo qabsaday deegaanadii dhawaan ay sheegeen in la wareegi doonaan iyo al-shabaab oo faaruujiyay deegaanada gobolka Galgaduud iyo xadka gobolada Hiiraan ay isaga dhacaan waxaan idin soo gudbin doonaa deegaanada haatan ay la wareegeen ciidamada beesha mursade qodobada kalena hadduu Rabbi idmo waxa ka mid noqonaya imaaraadka oo hubab iyo sidoo kale gawaari ka dejiyay deegaano ka tirsan gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland xogaasi kuwa kale ayaan qaybtan ku faaqidi doonaa hadduu Rabbi idmo ee ku soo dhawaada faafahintaasi xubno isugu jira xildhibaano iyo senatar ayaa waxay magaalada Muqdisho ku diyaarinayaan mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kuwani waxaa ka mid ah senatar Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ah golaha aqalka sare waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday inuu isbedel ku sameeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale senatarku waxa uu ku doodayay in xilligan loo baahan yahay in xilka ra'iisul wasaaraha la keeno qof aqoon tayo iyo sidoo kale bulsho isku hagi kara isagoo ku dhaliilay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inuu ka soo bixi waayay waajibaadkii loo igmaday waxa uu sidoo kale intaasi ku daray senatarka inuu ra'iisul wasaaruhu xalin waayay xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya iyo sidoo kale wasiirada loo magacaabay sida uu madaxweynuhu u noqon lahaa madaxa fulinta ee xukuumadda halkii ay ahayd inuu ka noqdo madaxa qaranka sidoo kale xubnahani waxa ka soo muuqanaya xubno ka soo jeeda maamulada Puntland iyo Somaliland iyo dowlad goboleedka Jubbaland Soomaaliya waxa isku dayayaan inay xilka ka tuuraan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo xilligan ku sugan dowladda Djibouti xilli uu ra'iisul wasaaruhu ka shaqeynayo inuu dib u soo celiyo dhalinyarada lagu tababarayo dalka Eritrea xubnahani waxay sidoo kale ku doodayaan in haatan loo baahan yahay in isku wadi kara xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka midayn karana dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda Soomaaliya sidoo kale waxay sheegeen in kalfadhiyada ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya xilka loogu tuuri doono wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyagoo sidoo kale abaabul ka wada magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Nairobi waxay sidoo kale abaabulkani uu soo gaaray magaalada Muqdisho oo haatan xoogiisa uu ka soconayo iyadoo ay sabaabulayaan xubnahani oo doonaya in xilka ay ka tuuraan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isagu qudhiisa magaalada Muqdisho waxa uu ka wada abaabul loogu soo horjeedo in xilka isaga laga tuuro sidoo kale xubno taabacsan oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ayaa magaalada Muqdisho waxay ka wadaan awaawulka ka mid lamida oo looga soo horjeedo in xilka laga tuuro ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre filla Soomaaliya arintani wali kama aysan hadlin ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha dalabka loo gudbiyana wali kama uusan soo jawaabin iyadoo la filayo sidoo kalena in dagaalada lagula jiro al-shabaab ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay wadaan iyagoo dhaliilada ugu badan ee xubnahani ay sheegeen in uusan qayb ka noqonin sidoo kalena kaalintii looga baahnaa dagaaladaasi in uu ka soo muuqdo ra'iisul wasaaraha uusan ka soo muuqanin ugu dambeyntii waxay xubnahani soo jeediyeen in caasimadda Muqdisho la hagaajiyo maamulkeeda iyo amnigeeda ogolaanshana la siiyo dadkeeda inay soo doortaan maamulkooda sida duqa magaalada iyo golaha deegaanka waxay sheegeen in xukuumadda Xamse Cabdi Barre ee arintani kaalin weyn aysan ka qaadanin sidoo kalena ay hagardaamo ku wado waxay sidoo kale intaasi ku dareen xubnahani in xilligan loo baahan yahay ugu dambeyntii in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo xusho ninka xilkaasi u qalmo ciidamadii ugu badnaa ee beesha mursade oo la wareegay deegaanka Wabxo oo ka tirsan gobolka Galgaduud ciidamadani muddooyinkii la soo dhaafay waxay ku sugnaayeen afaafka hore ama sidoo kale jiida hore ee dagaalka ee deegaanada gobolka Hiiraan ee Hirshabelle ciidamadani oo isku beeysanayay maalmihii la soo dhaafay magaalooyinka Beledweyne iyo sidoo kale Dhuusamareeb oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan waxay sheegeen in dhawaanahanba ay la wareegi doonaan deegaanada ay beesha ka degto dowlad goboleedka Galmudug gobolka Galgaduud waxay sheegeen in degmada Ceelbuur deegaanada hoostaga ay dhawaanahanba la wareegi doonaan beeshani oo ka mid ah beelaha dega gobolka Galgaduud waxay haatan gacanta ku dhigeen deegaanka Wabxo ay sheegeen inuu ka bilaabanayo howlgallada ay ku xureynayaan deegaanada kale ay ka degaan gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug sidoo kale
beelaha kale ee dega gobolka galgaduud oo haatan deegaanadoodu ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada al-shabaab iyagoo qudhoodu waxay sameynayaan howlgalla iyo sidoo kale abaabulo ka dhana dagaalyahanadan iyagoo sheegay inay xoreyn doonaan deegaanada beesha ay ka degto gobolka galgaduud iyo gobolada kale ee ku kala yaala maamulada hirshabeelle iyo galmudug balse haatan waxay u muuqanayaan ciidamadani aadka u tiro badan oo isugu jira kuwa deegaanka ee la magac baxay magacawisleyda iyo sidoo kale kuwa dowladda Soomaaliya in ay sameynayaan waxyaabo aan horey loogu arkin jiida hore ee dagaalka iyagoo maalmahanba la filayo inay gaaraan deegaanada isku xira gobolada mudug waxaan rabnaa insha Allah ragiina qoryaha wada saacada aan naga xigta guusha saacada naga xigta in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado waxa soo hartay hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo cayr ah waliba iyo murusada horta waxaan ku salaamayaa salaanta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh beesha xawaadle oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan iyagoo qudhoodu waxay sameynayaan howlgalla iyo sidoo kale abaabulo ay uga soo horjeedaan dagaalyahanada al-shabaab iyadoo markaan ay qabsadeen beeshani ciidamadeeda deegaanadii ugu badnaa ee gobolkaasi oo ay gacanta ku hayeen dagaalyahanada al-shabaab waxaa la soo warinayaa in deegaanadii ugu badnaa abid al-shabaab laga qabsaday deegaanada ugu badan ee al-shabaab lagala wareegana waxaa ka mid ah gobolada galgaduud iyo Hiiraan oo deegaanadii ugu badnaa al-shabaab ay iska baxeen wararka kale waxay tibaaxayaan in al-shabaab ay ka baxeen deegaanada haatan ay ku wajahan yihiin ciidamada beesha mursade kuwaasi oo sheegay in ay xoreyn doonaan deegaanada ugu dambeeya ee beeshu ay ka degto gobolada mudug iyo galgaduud iyaga oo sheegay in qorshahoodu uu yahay in ilaa ay gaaraan degmada Xarardheere ee gobolka mudug oo ay sheegeen in aysan ka soo laaban doonin ilaa ay gobolkaasi uu ka joogo al-shabaab waxay ciidamadani sidoo kale ay sheegeen in ciidamada kale ee ka soo baxaya degmada Dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ay isaga horimaan doonaan jiida hore ee dagaalka iyagoo sheegay in ciidamadaasi looga baahan yahay in ay ku soo biiraan dagaalka oo haatan oo maraya meel fiican sidoo kale beelaha Saleebaan iyo Saacadna waxay sameeyeen howlgalla iyo sidoo kale dagaalo ay la galeen dagaalyahanada al-shabaab iyagoo la wareegay deegaano ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee maamul goboleedka galmudug beeshani waa beesha Saleemaane waxa ay dagaal adag la gashay dagaalyahanada al-shabaab iyo dagaalkaasi uu khasaare kala duwan ka soo kala gaaray labada dhinac ay ku dagaalamay wararku waxay tabinayaan in dagaaladii ugu dambeeyay ay galeen beesha Saleebaan iyo sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ee uu ka dhacay deegaankii dhawaan ay ku dagaalameen oo ka tirsan ama u dhow degmada Cadaade ee gobolka galgaduud sidoo kalena jab xoogan uu ka soo kala gaaray dagaalyahanada al-shabaab oo la sheegay in dagaalkaasi looga dilay xubno ka tirsan dagaalyahanadaasi iyo sidoo kale gawaari looga qabsaday gaadiid isugu jira kuwa dagaalka iyo sidoo kale kuwa kale ee ciidamadu daabulo wararkii ugu dambeeyay ee gobolka galgaduud naga soo gaarayana waxay sheegayaan in haatan uu ka soconayo magaalooyinka waaweyn ee maamulka galmudug abaabul ay sameynayaan beelaha degan maamulkaasi kuwa oo looga soo horjeedo in deegaanada beelaha ay ka degaan gobolkaasi iyo sidoo kale deegaanada kale in laga saaro al-shabaab oo ay sheegeen in ay haatan xilligii loogu baahnaa ama loogu baahida qabay deegaanada in laga xoreeyo ay tahay wararkii ugu dambeeyay qubanaana xilligan wanaaganta